Itoobiya ayaa rajo wanaagsan waxay ka qabtaa in dekedda Berbera ay yareyn doonto ku tiirsanaanteedii Jabuuti. Dekedda Berbera waxaa laga furay qayb cusub oo ay ka soo degayaan kunteenarada waaweyn ee maraakiibta ka soo xambaara dalal kala duwan ee caalamka. Qaybta cusub ee dekedda Berbera ee Somaliland lagu kordhiyay isla markaana dhowaan la furay ayaa la rajeynayaa inay noqon doonto albaabka ugu weyn ee waraabiya dalkan aan hadda lahayn badda ee Itoobiya. Sidoo kale waxaa rajo laga qabaa in ay qayb ka qaataan xiriirka ganacsi ee ka dhexeeya dalalka Khaliijka Carabta iyo dalalka Bariga Afrika sida ay baahisay warbaahinta The Citizen ee dalka Kenya. Dowladda Somaliland oo iskaashi la leh shirkadda DP World ee ka shaqeysa horumarinta iyo ballaarinta dekedda Berbera ayaa furtay qaybtan cusub ee lagu kordhiyay dekedda iyadoo ay goobjoog xafladaasi furitaanka ay ka hayeen wasiirka maaliyadda ee dowladda federaalka Itoobiya iyo wasiirka gaadiidka dalkaasi iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar. The Citizen ayaa warbixin dheer uu ka qoray qaybta cusub ee lagu kordhiyay dekedda Berbera ayaa yiri Itoobiya waxay rajeynaysaa in ay terminaalka cusub ee dekedda Berbera uu yareeyo ku tiirsanaanteeda Jabuuti. Madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay furitaanka dekedda Berbera markii la ballaadhiyay ayaa sheegay in ballaadhinta dekedda Berbera ay fursad dhaqaale oo muhiim ah u tahay gobolka Bariga Afrika. Terminaalkan cusub ee dekedda Berbera oo uu weheliyo aagga dhaqaalaha waxay hadda u taagan yihiin inay sii horumarino dhaqaalaheena kaasi oo loo marayo kororka ganacsiga, soo jiidashada maalgashiga shisheeye iyo abuurista shaqooyinka ayuu yidhi madaxweynaha Somaliland. Waxa uuna intaas ku daray dekedda cusub waxay u adeegi doontaa dalalka badda aan lahayn sida Itoobiya ayaa boqolkiiba 95 waxay ku xiran tahay Jabuuti waxayna la soo degayso wixii ay dhoofisaba sida uu sheegay The Citizen. Laakiin sida laga soo xigtay madaxda Somaliland iyo shirkadda DP World, qaybta cusub ee lagu kordhiyay dekedda Berbera ayaa kordhinaysa awoodda dekedda dhinaca kunteenarada sanadkii ka soo degi kara. Waxayna sheegeen inay hadda awood u leedahay in sanadkii ay ka soo degaan ilaa iyo 500,000 oo kunteenar oo waaweyn ah halkii ay markii horeba sanadkiiba ay ka soo degi jireen 150,000. iyadoo ay sidaa tahay haddana shirkadda DP World waxa ay bilaabaysaa wejiga labaad ee ballaarinta dekedda maadaama uu dhammaaday wejigii koowaad ee ballaarinta dekedda, sidaas oo ka dhigan in marka wejiga labaad uu dhammaado ay dekedda awood u yeelan doonto in sanadkiiba ay qaabisho 2 milyan oo kunteenar. Sidoo kale iyadoo la ballaarinayo dekedda Berbera haddana waxaa dowladda Somaliland wadaa dhismaha wadada isku xidhaya Berbera Itoobiya iyo dhismaha goob canshuuraha ka caagan. Sida laga soo xigtay saraakiisha Itoobiya, mashruuca wadadan oo lagu wado in la dhameystiro dabayaaqada sanadkan ma noqon doonto kaliya wado loo maro Itoobiya balse waxaa lagu qaban doonaa adeegyada hufan maadaama oo ay Itoobiya ogolaanayso in alaabooyinka ka soo dega Somaliland ay galaan dalkeeda. Bishii May ee sanadkan aynu ku guda jirnay 2021 shirkadda DP World waxa ay wasaaradda gaadiidka Itoobiya la gashay heshiis ah in ay wadada isku xidhayso Berbera Itoobiya ay dhankooda ka soo dhisaan. Wasiirka gaadiidka ee dowladda Itoobiya ayaa waxa uu xilligaas uu sheegay in horumarinta Berbera ay dabooli doonto baahida sii kordhaysa ee dalkeeda ee ganacsiga caalamiga ah ay u qabaan.